qayb waa abuur qaybna waa muktasab waa wax la barto oo tadriib iyo training waa wax tababar loo galo si aad naftaada u dhisho oo qulunka uga dhisho oo aad ka dhigtid qof suubano hagaagsan nabiga calayhi salaatu wasalaam wafdi baa u yimid nin ashaj cabdilqays la yidhahda ula socdo ninka kan wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam inna fiika la khaslatayni yuxibuhum allah waxaad niya u leeday laba dhaqan oo ilaahay jecel yihiin laba dhaqan oo ilaahay jecel yihiin wuxuu nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam riwaayaadku waa kala gedisan yihiin riwaayadda muslim waxay sheegaysaa alxilmu walanaa dulqaad iyo kaadsiiyo hubsiino waxaa tahay qof dulqaad badan oo dulqaadku qofku inaanu wax yaray isaara ku samayn inaanu kicin soomaalidu waa dad soodhaa inta badan waa dad uu aad ugu yaryahay dulqaadka isaga laakiin nabigu ninkan wuxuu ku ammaanaya inuu yahay qof degan marka hore anaa leh deganaanshiya leh dulqaadna leh riwaayadda imaamu nasaa'i say sheegaysa wuxuu ninkii weydiiyey shayun jubiltu calayhi aw shayun atakhallaqu ma wax ilaahay ugu abuuray ba mise waa dhaqanaan kasbaday dhaqanaan yeeshay anigu iyo xirfad ku keenayba mise waa wax ilaahay subxaanahu watacaala igu abuuray nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi laa bal jubilta calayh maya labada tan adigu waa sajiya waa dabeeca ilaahay subxaanahu watacaala kugu abuuray idan qaybi baynu leenahay dhaqanka waa abuur وواك إلهي القرآن فوقت المامة سبحانه وتعالى قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا عيسى إلهي مركو مريم يتحرى الخير يعطى ومن يتوقع الشر يوقع يوقع نبو عليه الصلاة والسلام كذا طفل ولد أيوه شيخ الألباني حسب كنت الإمام وحليه علمه ورشد كل ما أنبياء وحي موسى دقم ويا دقة عندك عليه حبيبي عود بدنيدو معها إن تقفك لقدي كرتون حق بدنيدو نبوي وقفك نفتي سحن تمر وحنا الأسلوبات عرض عن الجاهلين إلهي وحنا النبي يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين عفوك قالوا dadkana samaha far jaahiliintiiyo wax magaradka waxa kaa soo gaadhana ka jeeso qurux ma laha qofkii farta kugu soo taagaba inaad shab ku taagtaa casrigana saasay u badanta wadaadkii wadaad kale eray ku yidhaahda isna waa inuu toban ku yidhaahdaa siyaasigii siyaasi kale eray ku yidhaahdaa isna waa inuu toban ku yidhaahdaa قبيل في قبيل كلا لبا يراي كيرا هذا اسمه وين شنقه بيوتريا وحين نودمي waxa weeyaan hadii mid la yiraahdo waa illa qila bidaahdo laakiin nabiyullaahi muhammad alayhi salatu wasalaam oo rasuula oo ilaahay wahyi ku soo dajiyay oo kamaal al akhlaaq leh ay waxay lahaayeen waa saaxir iyo waa kadaab iyo waa kan markaas ilaahay leeyahay waa aan aan ilaahay lama oran nimanka kula waa saaxir iska dhici ينما كذاب وشيء كان شيء إلهي وحكي وأعرض عن الجاهلين وحما قرطنا وحبها والإفتان إذا مدغموا وعوبة هي نفسها لطوابرة دغموا معلومات معها أقوم تعضوا بضانتي معلومات ترب بدنين انفورميشن بدنين وماذا حاجة بوجهه أما من الدينات هذا أما من الدنوية هذا لكن أسوأ الناس بعد نقول كرتاهدنا يدو information كان كتير بدنيا yes information كتير هذا بدنيا وكان مركز نقول بقول ده بتاعون ضغط العالم هذا محمد ترى نقول إيش وقتها هاي قعدت هذه أفعال وأقول حكاية إن من خياركم حلكينا وحكمنا وإلهي تذكر الله ما يروح أنت حلك أهي وحوي ابن النبي يقول يا أحسنكم أخلاقا haddana muxaadarada ku xigta waxay ku baxaysaa luqadda ingiliishka waxaan inoo soo jeedin doonaa sheekhana sheekh cabdulqani bashiir
موضوع الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. As was announced by my brother Sheikh Mursal, my talk is a reminder about a covenant or an agreement that we entered into with Allah subhanahu wa ta'ala has been disregarded by many amongst human beings. It has been broken and violated. My brothers and sisters in Islam, ميثاق الوالدين ميثاق الغليظ. This covenant is a very difficult one. أخذه الله عز وجل قديما على بني إسرائيل وعلينا.